waxaa maanta si rasmi ah loo soo gabagabeeyay guud ahaanba imtixaanaadkii shahaadiga ahaa ee dib-u-kabista ardaydii sanadkii u dambeysay 2016-2017 ka hadhay imtixaanaadkii shahaadiga ahaa ee qaranka. imtixaankaas oo soo diyaarisay wasaaradda waxbarashada iyo sayniska iyo xafiiska imtixaanaadka qaranka ayaa waxaa ka warbixiyay agaasimaha waaxda tayeynta ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska aqoon-yahan Maxamed Saleebaan oo ka warramay dadaalkii dheer ee wasaaradda waxbarashadu ay gelisay ardayda tirada badan ee waqtigan u fadhiisay imtixaanaadka dib-u-qiimeynta ah. maanta oo ay taariikhdu tahay 1 February waxaynu halkan u joognaa gabagabaynta soo xidhidda ama soo afjaridda imtixaanaadkii 5 maalmood ee la soo dhaafay u socday ardaydii aan ku guuleysan imtixaanaadkii shahaadiga ahaa ee dugsiyada sare ee sanad dugsiyeedkii 2016-2017 waxaa xusid mudan in ardayda 4 bilood ee la soo dhaafay ay wasaaradda waxbarashadu u waday tacliin kor loogu qaadayo aqoontooda. macallimiinta loo xulay waxay ahaayeen macallimiintii xulka ahayd ee wasaaradda waxbarashada. buugaagta lacag la'aan baa lagu siiyay wasaaradda waxbarashada siisay. ardaydu lacag la'aan bay wax ku baranayeen. waa ilaahay mahadii dhammaan waxyaabaha soo dhamay inay si guul u dhamaadeen. gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka qaranka Daawud Axmed Faarax oo u rajeeyay ardaydaasi guud ahaanba inay ku guuleystaan imtixaanaadka maadaama mar labaad dib looga qaaday imtixaanadaasi ayaa tilmaamay in fursadan ay tahay tii u dambeysay wasaaradda iyo xafiiska imtixaanaadku ay siiyaan daayirta galaysa imtixaanaadka shahaadiga qaranka maadaama buu yidhi ay ku bilaabeen sanadkii la dagaalanka qishka iyo kor u qaadida tayada waxbarashada qaranka. ardaydii sanadkii dhaweyto imtixaanaadka halkii la rabay aan gaarin runtii dabeetana maadaama waqtiyo doorasho iyo lagu jiray oo xasaasadi iska jirtay ardayduna aan la dagaalamay waxa aad looga dagaalamay waxa ay ku dhaqmi jireen oo hore oo ahaa moobilada in imtixaanka smartphoneska looga soo diro oo banaanka looga soo shaqeeyo kuwiiba olole lagu qaaday dabeetana tii waxay dhaxasiisay arday aan hore u dhici jirin number aan dhici jirin oo ka fara badan 5 jibaar 7 jibaar sidii awal ardaydu ahaan jirtay ayaa sanadka haw keenay ololihii lagu qaaday la dagaalankii jiitinku dabeetana wasiirkii wasaaradda waxbarashada markaa joogay waqtigaa joogay ayaa wuxuu go'aansaday si aan ama crisis ama buuqiyo waxba toona u iman in ardayda la siiyo chance maadaama waxay isku haleynayeen oo mobilka ahaa gacanta lagaga dhigay waxaan markaa rajaynaynaa jaamacaduhuna inay kolkaan imka natiijada soo saarno kulli waxay qaataan wax la yiraahdo crash oo semesterkan soo socdo kala ay badiyadu jaamacadu qaataan. geesta kale gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka qaranka Daawud Axmed Faarax waxa uu fariin dheer u diray waalidiinta iyo bahda kala duwan ee ardayda ku jirta dugsiyada dalka ee fasalka afraad ee sare isagoo ugu baaqay in guud ahaanba xafiiska imtixaanaadku soo gabagabeeyay imtixaanaadkaasi mar dambana aanay ka dhici doonin wasaaradda iyo guud ahaan xafiiska imtixaanaadka qaranka in arday dib loo qiimeeyo. ardaydu soo saarina waa in arday ay qoonyahana ahaada oo ku soo bixin moobil marka waxa weeye ku tala gelina moobil waa rutina dhalinyar fara badan baa imika agaasimayaal wasiir noqday waa arday wax soo baratay oo aqoon leh marka waxaan rabnaa ardayga wax u noqonaya dalkan inuu noqdo nin aqoon leh laakiin aqoon toobal caraan wadan imtixaan dambe dib loogu celin maayo waa kiidii ku dambeeyay inuu wax isku halayn haday 2 ma 3 dhacayaan imtixaan dambe dib loogu celinaya ma jiro wuxuu ku noqonayo ardaygu rabiid buu ahanaya. gabagabadii agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Professor Maxamed Faarax Xareed oo madashaasi ka hadlay ayaa isna tilmaamay wasaaraddu ay dadaal u galayso sanadkan wixii ka dambeeya sidii waxbarashada loo tayeyn lahaa isla markaasina ardayda looga baahan yahay in ay qiimeeyaan aqoonta ay baranayaan kuna dadaalaan wax akhriska. waxbarashada ardayda hoose dhexe iyo saraba la tayeeyo laga bilaabo in macallimiinta aqoontooda la tayeeyo manhajka la tayeeyo ardayda waxbarashadooda la tayeeyo. qodobka dambe ee ardayda tayeyntooda waxbarasho ah waxa qayb muhiim ka ah ardaydu marka wax loo dhigo ay inay soo dadaalaan dabadeetana imtixaanka laga qaadayaa uu noqdo mid cadaalad loo saxo kii gudbi waaya inaanan hadda siduu gudoomiyaha imtixaanaadku sheegay dhacdadan imika ah ee naqtiinka loo sameeyay ardaydii imtixaankii dhaweyto ee sanadkan gudbi weyday in uu yahay kii ugu horeeyay kii ugu dambeeyayna uu yahay